السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan khiyaartana daawanaysa idilkiin baa meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeeni habeenimo. maanta waxay ahayd maalinimo Isniin ah, taariikhduna waxay ahayd 5 bisha August sanadka 2024. haddaba barnaamijkeena habeenimo waxaan idinkugu soo gudbin doonaa qodobo aad muhiim u ah. saldhig Mareykanka uu ku leeyahay Ciraaq oo weerar lagu qaaday caawa. sidoo kale barnaamijka waxaan idinkugu soo gudbin doonaa madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo kulamo hadda ay u furmeen u soconaya isaga iyo kooxdiisa amniga qaranka, iyadoo laga baqayo saacadaha lagu soo aadan inay weeraro ka dhacaan Israa'iil oo Iiraan ay jawaabteedii bilowdo. waxaa sidoo kale barnaamijka aad ku maqli doontaan Masar oo cabsi ay soo food saartay, Mareykanna kala hadashay xaaladda sida ay noqon karto marka dagaal uu ka qarxo bariga dhexe. haddaba qodobadaasi iyo warar kale oo wixii soo kordha ah hadday yimaadaan inta aan barnaamijka ku jirno waan idinla socodsiin doonaa. kulanti wanaagsan mar kale khiyaaray meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeeni habeenimo maanta oo Isniin ahayd. haddaba qodobo muhiima ayaa noo soo socda. marka ugu horeysa waxaynu ku bilaabaynaa kooxaha muqaawamada waddanka Ciraaq ayaa war ay soo saareen goor dhaweyd waxay ku sheegeen inay weerar ku qaadeen saldhig Mareykanka uu ka degan yahay dalkaasi oo la yiraahdo Caynul Asad. haddaba sidee wax u jiraan saldhigga, maxaa khasaaraha oo soo gaaray? haddaba marka aan idin tuso wararkii ugu dambeeyay ee saldhiggan la weeraray lagu soo qoray warbaahinta. warbixin dhinaca ammaanka waddanka Ciraaq ayaa waxay sheegayaan in gantaal uu ku dhacay gudaha saldhigga la yiraahdo Caynul Asad. haddaba warbixinada dhinaca amniga Ciraaq ka imanaya ee ay Al Jazeera helayso waxay sheegayaan in gantaal lala helay mid ah gudaha saldhigga la yiraahdo Caynul Asad, kaasoo ay degan yihiin ciidamada Mareykanka iyo kuwo kale oo ay isbahaysi yihiin. waa tahay marka markii ugu horeysa mar walba muqaawamada Ciraaq saldhiggaas way weeraraan, nagtay ka geliyaan, way garaacaan. caawa marka gantaalihii lagu riday waa galeen gudahay u galaa leeyahay gantaalka. marka qiiq fara badanaa ka baxay, meeshii uuraa ka baxday, laakiin Mareykanku weli wax tafaasiil ah oo arintaa ay ka soo saareen ma jiraan. marka khubarada waxay leeyihiin marka tijaabada way socotay, Xamaas way samaysay, Xisbullah way samaysay, kuwa Ciraaqna way sameeyeen. macnaha dagaal weyn hadduu qarxo ciidanka Mareykanka ee Ciraaq joogaa waa la qararamsanay kulay. macnaha gudaha gantaalka loo geliyay waa la tusay. gantaalkuna wuxuu ahaa leeyahay midkii ay hore ugu weerari jireen mid ka culus oo maaragtay ka farsamo badan ayay isticmaaleen ayaa la leeyahay. haddaba waa arki doonaa sheekadii bariga dhexe ayaynu weli ku jirnaa, xaaladdu cirkaasay maraysaa. qodobka labaad ee barnaamijkeena habeenimo waxaynu ku faahfaahinaynaa madaxweynaha waddanka Mareykanka Joe Biden ayaa xilligan aan idinla hadlayo wax yar ka hor waxa uu bilowday kulan oo la leeyahay kooxdiisa dhinaca amniga qaranka, kooxda la yiraahdo. maxaa laga arinsanayaa tallaabooyinka Mareykanka la gudboon ee uu qaadi karo, iyadoo laga baqayo saacadaha nagu soo aadan inay dhacaan weeraro ka yimaada Iiraan iyo awlaadeeda. maxaa laga samayn karaa? sidee laga yeeli karaa? sidee uga hortagi karnaa? jawaabta aan bixin karno miisaan intee la eg ayay lahaan kartaa? xiisada gobolka sidee noqon kartaa? maanta wafdi Ruush ahaa tagay muxuu ahaa Iiraan, Ruushku muxuu halkaa ka qaban karaa? maxaa dhici kara? waxyaabahaas oo dhan la isla korfeenayaa. hadda ayaa White House-ka la fadhiyaa xilligan habeen waayo aan idinla hadlayo, waa la shirayaa, halkaasaa marka hawshu ka socotaa. haddaba warbixinta laga qoray sheekadaas haddaan idinla wadaago, Al Jazeera waxay leedahay wariyaha telefishinka Al Jazeera wuxuu soo sheegayaa dalka Mareykanka in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu hadda bilaabay kulan uu la leeyahay kooxdiisa lagu magacaabo amniga qaranka, wuxuuna uu fadhiyaa hadda qolka howlgallada ciidamada ee aqalka cad ayuu soo fariistay.
marka waxaa laga wada hadlayaa isbedelada ka socda gobolka bariga dhexe. haddaba waxaa la sheegayaa joornaalka la yidhaahdo Washington Post inuu qoray in maamulka madaxweyne Biden ay markaa gaarsiiyeen hay-adaha sharciga Mareykanka duqeymaha Iiraan ay Israa'iil ku samayn doonto haddii ay dhacaan. marka maxaa dhici kara? meelaha laga baqayo waxay ahayd subaxnimada Isniinta iyo subaxnimada Talaadada inay dhacaan. haddaba marka waxaa la sheegayaa ku-xigeenka madaxweynaha Kamala Harris inay markaa la filayo in markaa loo magacaabo musharaxa xilka madaxweynenimada waddanka Mareykanka. waxaana la sheegayaa in labada maalmood ee soo socota ay markaa howlahani socon doonaan. haddaba Mareykanka waxay leeyihiin diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka oo dheeraad ah ayaa waxaa la geeyay gobolka bariga dhexe. haddaba marka waxaa la sheegayaa in xaaladdu ay cirka marayso, jawaabta Iiraanna laga baqayo inay dhacdo saacadaha soo socda. waa tahay marka maxaa la leeyahay qurfad camaliyaad la yiraahdaa qolka howlgallada ayuu fadhiyaa. hadda aan idinla hadlayo madaxweyne Biden wuxuu la shirayaa kooxdiisa la yiraahdo kooxda ammaanka qaranka. kooxda la yiraahdo la shirayaa, wuu la fadhiyaa. marka maxaa laga wada hadlayaa? saacadaha soo socdaa laga baqayaa in meeshaasu ay dhibaato ka dhacdo oo weerarka uu bilowdo. marka sharciyan Mareykanku muxuu samayn karaa? suu difaaci karaa? muxuu kaga jawaabi karaa? howlahaasoo dhan waa laga shaqaynayaa. maxaa ka dhalan karaa? jawaabta uu Mareykanka bixin karo dagaalka hadduu weynaado maxaa laga yeelayaa? waxaasoo dhan marka dhammaan waxayna tusinayaan waxaan oo dhan xaaladdu heerka ay gaarsiisan tahay. weli waxba ma dhicin ogaada, laakiin xaaladdu marba marka ka dambaysa way soo dhawaanaysaa. waxbaa la sheegayaa. marka annaguna waa sugaynaa sida ay wax u dhacaan. haddaba qodobo kale oo xasaasiya oo muhiima ayaa noo soo socda, laakiin waxaynu ku yara hakanaynaa qadar yar oo xayeysiis. waxaa dhammaanba bulshada reer UK rag iyo dumarba lala socodsiinaya inay jiraan fursado shaqo oo la xiriira daryeelka caafimaad ee keerka. fursadahaasi qiimaha badan waxaa bixinaya xarunta lagu magacaabo Sana Carers ee ku taalla UK. dad ayaa jiraya helaya fursado ay ku shaqeeyaan saacad. dad ayaa habeenkii oo dhan shaqayn karaya oo markaasi baahida la rabo dabooli karaya. xaruntaasi Sana Carers waxaa kaloo ay dadka ugu tala gashay in ay dadku la shaqaynayaan dadka markaasi baahida gaarka qaba oo ay guryahooda kula shaqaynayaan. laakiin arrinta la yaabka leh wanaagsan waxa ay tahay in xaruntan Sana Carers iyo qofka shaqaynaya hay-ad u dhaxaynaysa aanay jirin, taas oo macnaheedu yahay qofku lacagtiisii oo buuxda inuu qaadanayo. la xiriir faahfaahin dheeraada si aad u heshid www.sanacarers.com. waxaan nahay Gastasos Group. waxaan idin diyaarinay goob dalxiis oo aad u weyn, qurux badan. waa dalka Finland. dalxiiskaasi waxaad ka heli kartaa package muddo 5 sano ah. sanad kastaana waxaad helaysaa 7 lacag la'aan ah, jiif, quraac iyo weliba jimicsi. Sona Hall Sports, goob lagu ordo iyo dabaal. dadka caafimaadka u yimaada in aan la raadinno takhaatiir heer sare ah oo weliba takhasusaad kala duwan leh iyo shaqaale soo dhoweyn heer sare ah. waxaa intaasi kuu sii dheer gaari bilaash ah oo kaa soo qaada airportka. booqo website-keena oo nagala soo xiriir taleefanka. kulanti wanaagsan ee khiyaari meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeenii habeennimo inagoo maraynaa qaybihii ugu dambeeyey maanta oo Isniina. taariikhduna ay ahayd 5 bisha Agost sanadka 2024. haddaba marka qaybtan waxaynu ku eegaynaa dhowr qodob. qodobka ugu horeeya marka qaybtan oo qodobada ugu dambeeya kamid ah barnaamijkeena waxaynu ku faahfaahinaynaa masaaridii ayaa cabsi la soo diristaa la leeyahay. maalmahan waxaan idiin sheegaya waad ogeydeen dadka khubaradu inay lahaayeen wafti saraakiil ah, sirdoon ah, ciidan ah inay tageen Israa'iil, Masar ay tageen oo ay madaxda masaarida iyo sirdoonka la kulmeen. wararka marka la sheegay iyo wararka kale ee la isla dhaxmaray waxa in haddii xaaladda ku xumaato halkan maaragtay Masar ay soo gali karaan. marka waxaa leeyahay sheekadu marka xaalku warku waa qasan yahay. masaaridii marka cabsiya la soo diristay warkiya shaacay. Masar waxay rabtaa marka Masar waxay leedahay
saameyn weyn oo dagaalkan laga yaabaa inuu idinku yeesho haddii wax dhacaan gobolkoo dhan isla gubto Masar khataray galaysaa wareeraa dhacaya dagaalkii marka masaaridii carabtii kale wixii oo dhan gobolkii oo dhan waa la isla gariirayaa waxaa leeyahay waxan yaa ka hortaga marka wasiirkii arrimaha dibadda ee Masar ayaa telefoonka wuxuu kula hadlay Antony Blinken wuxuu leeyahay war nimayahow xaalka naga dejiya sida aad u jawaabi doontaan xoogaa laftirkiinu mid miisaaman ha noqoto dagaalkiisu inta faraha ka bixin xaaladdu iyo xumaan masaarida way qaylinaysaa marka aan aragno marka warbixinta laga qoray sheekadan haddaba telefishinka Sky News qaybtiisa Carbeedka wuxuu leeyahay Badr Abdelcaati ayaa waxaa la sheegayaa wasiirka arrimaha dibadda iyo hijrada ee Masar maanta Isniina waxaa la sheegay inuu telefoonka kula hadlay dhigiisa Mareykanka Antony Blinken si ay markaa wada hadal u yeeshaan arrinta ku saabsan xaaladda ka sii daraysa gobolka bariga dhexe sidii loo qaboojin lahaa wax looga qaban lahaa haddaba Ahmed Abu Zayd ayaa wuxuu leeyahay afayeenka rasmiga ah wuxuu leeyahay dhinaca diblomaasiyadda wasaaradda arrimaha dibadda ayaa wuxuu sheegay in labada wasiir ay ka wada hadleen xiriirkoodana uu ku saabsanaa arrinta ku saabsan dowladaha gobolka walaaca ay qabaan oo ah in dagaalka uu faraha ka baxo waxaa sidoo kale la sheegayaa in wasiirka arrimaha dibadda ee Iran iyo Lebanon iyana lala hadlay oo xaaladda lagala hadlay dhanka kale wasiirada arrimaha dibadda ee dowladaha Yurub ayaa iyaguna arrintan ka shaqeynaya sidii xaalka loo dejin lahaa marka waxaa leeyahay masaarida waxay samaysay waxay la hadleen Blinken waxay la hadleen dadkan kale waxay leeyihiin xaaladda la dejiyo waxa soo kale iyadana ku jirta meesha midowga Yurub wasiir ka tirsan oo xaaladda la qaboojiye leh laakiin Iran way sheegtay barnaamijkan kii ka horeeyay galabnimona waa ku sheegay taliyaha ciidanka ilaalada kacaanka inay ka go'an tahay inay aargutaan uu sheegay marka wax noo haraay ma loo dhaay baashu waxay tagtay xaniya kataabad gudaheena dad marti aan lagu diloyin macnaheedu marka wax waaye sharaf ka dhacana lagu sameeyay marka waa inaan jawaab bixinaa haddaba xaalku halkaas uu marayaa dhanka kale marka saraakiil sare oo dhinaca ammaanka Israa'iiliyiinta war laga soo xigtay waxay leeyihiin iyaguna warbixintooda ugu dambaysa barnaamijkan idinku falanqayn doono waxay leeyihiin jawaabta Iran way ka cuslaan doontaa jawaabtii hore markii qunsuliyadeedii Suuriya la weeraray macnaha bishii Abriil weerarkii ay soo qaaday oo intaasoo 300 oo gantaalo iyo drone hal mar ay soo dirtay mid ka culus oo noqon doona marka hore Iran kaliya soo riday hadda awlaadii oo dhan shaqaysanaysa oo ay ugu horeeyaan Hezbollah Houthi kulli marka xaalku Israa'iil waa ku xun yeelayeen waa rag sare oo saraakiil ah oo dhinaca amniga iyo waxa kan Israa'iiliyiin ah haddaba marka aan idin soo warbixin arinta laga qoray wargeyska Al-Quds Al-Arabi isaguna wuxuu sheegayaa in la filayo madaxii hore ee ammaanka qaranka Israa'iil wuxuu sheegay ninka la yiraahdo Yaakov Ambirodor isniinta maanta wuxuu sheegay in jawaabta Iran ee la filan karo dilkii Ismaaciil Haniya ay noqon doonto mid markaa aad u adag waxaana weerarka intiisa badan uu sheegay inay filayaan in lagu soo qaado goobaha halbowlayaasha Israa'iil warshadaha iyo meelaha ciidanka iyo meelaha korontada laga dhali iyo meelahaas in la soo weerari doono ay sheegayaan hay'adda wararka u faafisa rasmiga Israa'iil waxay sheegtay iyadoo mas'uuliyiin soo xiganaysa in jawaabta Iran ay ka awood badnaan doonto marka la barbar dhigo jawaabtii ay ka bixisay weerarkii cirka ee qunsuliyadooda Dimashq lagu qaaday bishii Abriil ee la soo dhaafay mawjida marka waxay leeyihiin Israa'iiliintu way dareensan yihiin Iran inay aad u careysantahay wali waxay leeyihiin markan waa ka culus yahay weerarkii hore jawaabtu way ka khatar badan tahay marka meelaha ay naga soo weerari doonto waxa kamid ah halbowlayaasha wadanka meesha biyaha laga dhaliyo meesha korontada laga dhaliyo meelahaas muhiimka meelaha gaaska
meelaha waxa dawladdu ay haysato halbowlayaasha bulshada maaragtay adeegyada ah ayaa nagta laga gelin doonaa la leeyahay marka sheeko wali halkaasay mare wax weerar oo dhacay male warbixinadanuna waxay ahaayeen kuwii ugu waaweynaa ee dhacay saacadihii la soo dhaafay intii aynu kala maqnayn barnaamijkeeni habeenimana waa naga intaa fadlan intaadan ka bixin barnaamijka like garay oo share garay Facebook iyo YouTube haddaad nagala socoto wixii cusub waan idinla socodsiin doonaa haddii alla idmo warar xaqiiqda ku salaysan oo masdarkoodii wata iyo meeshii laga soo xigtay ayaanu barnaamijkeena idinkula wadaagi doonaa haddaba haddaad nagu cusub tahay subscribe ha ka iloobin YouTube-ka Facebook-na follow garay inta aan mar kale barnaamijka lamida ku kulmayno nabadgelyo